السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان أصحاب تيدا كسو دوادا كسو آت وحنون بدن تاسو عوان كيد ويهي دول ميقاقي وكي waxaa jiray qoys ka koobnaa hooyo iyo aabo iyo laba caruur ay dhaleen. qoyskaasi waxay ku noolaayeen nolol fiican oo raaxo leh. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Faadumo oo ahayd hooyada reerka waxaa u yimid oday ay seegeeda qaraabo yihiin oo sabool ah. odayga waxaa la socotay gabadh yar uu dhalay oo la odhan jiray Ceebla waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan. aabaheeda waxa uu reerkii ka codsaday in ay u shaqayso oo la joogto. odaygii wuxuu Faadumo kula balmay wixii lacag ay gabadhiisa shaqayso inuu soo doonan doono bisha markay dhamaato. odaygii sidii buu ku tagay Ceeblana ayada oo oynaysa ayay aabaheedii macsalaamaysay. Ceebla waxa ay toosi jirtay aroortii salaada subax. hawsha gurigana waa ay wada qaban jirtay. Ceebla caruurta hore ayaa ay u quraacin jirtay. waxa ay u diyaarin jirtay agabka iyo buugaagta ay iskuulka u qaataan. nasiib darose wiil ay reerku dhaleen ayaa markasta canaadi jiray dilina jiray Ceebla. marka ay Ceebla wiilka hooyadii ugu dacwootana uma garaabi jirin. haddii ay cabashadu odayga reerka gaartana wax naxariis iyo jixinjix ah kama aysan heli jirin Ceebla. waxa ayaan dar u ahayn reerka ay Ceebla u shaqayso ma aysan ogolaan jirin fadhi iyo nasasho midnaba. Ceebla markii ay u adkaysan weyday naxariis darada iyo hawsha adag ee guriga joogtada ah ayaa reerkii ka baxsatay. markii 3 cisho la ayaa reerkii ay la joogtay soo kaxeeyeen iyada oo masjid nadiifiso ka ah. waagii dambe gabadhii Ceebla maskaxdeedii caadi ma ahayn. indhahana waa ay ka cabin jirtay oo waxaa ku dhacay xanuun ay ka qaaday shaqadii adkeed ay qaban jirtay. adeega loo dirana si fiican uma xasuusan jirin. Ceebla markii suuqa ama dukaanka loo diro alaabtii loo diray waa ay soo kala iloobi jirtay taasoo ay ku mudan jirtay in ay reerka ciqaabaan. markii qoyskii ay Ceebla u shaqaysa ogaadeen xanuunka culus ee haya ayaa waxay ka fursan weyday inay Ceebla yaro dhakhtar soo tusaan. dhakhtarkii loo geeyay Ceebla markii uu wareystay kadib waxa uu reerkii ay la joogtay u wargeliyey in inantu ay aad u xanuunsan tahay oo haddii aan la daaweyninna oo indhaha beeli doonto. qoyskii ma aysan qaadan taladii dhakhtarka. udiyar kadibna Ceebla waa ay indho beeshay. taasi waxa ay keentay in qoyskii ay la joogtay markii ay hawshii guriga waxba ugu tari weyday inay dibadda u saaraan. waagii dambe reerkii ay Ceebla la joogtay wiilkoodii weynaa ayaa waxaa loo guuriyey gabadh. 3 da'ood oo isku xigta ayaa gabadhii u dhashay 3 caruur oo indhala. reerkii iyo cid kasta oo maqasha arrintani waxa ay aad ula yaabi jireen 3 caruur oo isku xigta oo indhala u dhashay. waxa ayna isweydiiyeen inkaartan qoyska ku dhacday halkee ayay uga timid. qoyskii Ceebla u shaqayn jirtay dib ayay isku naqdeen. waxa ayna isweydiiyeen sababta keentay ayaan daradan iyo ubudkan u dhashay indhala'aanta. waxa ay dareemeen in ciqaabta iyo cuquubada ku dhacday ka soo jeeda dembigii ay Ceebla ka galeen. ugu dambayntii reerka waxa ay baadi gooween halkii ay Ceebla ku dambaysay. baadidoon dheer kadib waxa ay soo heleen ayada oo fadhisa meel gidaar ah ayadoo dhibaataysan oo haddana indhala. kadibna waxa ay geeyeen dhakhtar oo lagu daaweeyo oo indhaha looga fiiqo. arageediina waa oo u soo noqday. isla reerkii waxa ay Ceebla ka codsadeen in ay ka saamaxdo dhibaatadii iyo cadaalad daradii ay u geysteen. Ceeblana waa ay ka ogolaatay raaligelintoodii wayna cafisay. 3dii caruur ahaydna indhihii ayaa Ilaahay u furay. ugu dambayntii reerkii waxa ay Ceebla ku dareen dugsi wax ayna ula dhaqmi jireen si sinnaan ah iyaga iyo caruurtooda. sheekadu waxa ayna baraysaa in aad iska ilaaliso qofna in aad dulmiso waayo dulmi waa u kay qofka sameeya. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. fadlan la wadaag asxaabtaadii inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga. waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.